بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaalkani waa darsigii 14aad ee kitaabka tajriid الtawxiid min daran shirki wa shubahi tandiid. waxaan ku jirnaa fasalka koobaad asalkiisa 17 oo uu sheekhu kaga hadlayay shafaacada iyo waxyaalaha ku saabsan ilaahay ka sokow in la yeelo sida wasiid, mid ilaahay dhexdhexeeya asaga addoomihiisa ka ah, iyo shafaacada. waxaan soo gaarnay asalka 17aad. sheekhu wuxuu yidhi al-aslu السابع عشر صفحada 47 التوسل إلى الله بذات شخص والسؤال به ليس سببا لقضاء الحاجة وإجابة السؤال. sheekhu wuxuu yidhi التوسل إلى الله ilaahay in lagu dhowaado bidaati shaksin axad daatadiis kale, wasu'aalu bihi iyo in ilaahay wax lagu weydiisto axadkaas, laysa sababan sabab uma noqon karto liqadaa'i alxaajati dantaada in lagu soo gudo, wa ijaabati saa'ili as-su'aali iyo su-aashaada in la aqbalo uma noqon karto sabab. macnaha dadka qaarkood waxay sameynayaan, waxay leeyihiin ilaahay baan axad kale ugu dhowaanayaa, marka waxaan leeyahay ilaahow qof hebel awgiis wax igu sii, ilaahu qof hebel jacaylka aada jeceshahay awgiis wax igu sii, ilaahu qof hebel fadligiisa wax igu sii. marka oraahdaas aad sidaas u leedahay ma ahan sabab keensan karta in dantaada lagu oofiyo, amase ijaabatu su-aal, su-aashaada in lagaa ajiibo oo ducadaada laga aqbalo sabab uma noqon karto arrintaas. macnaha sidee sabab ugu noqonayda? axadkaasi ilaahay hadduu jecelyahay isagaa jecel, adiga maxaa kaa galay? meeshaas maxaa ku geliyey? adiga camal aada adigu leedahay ayaad ilaahay ku baryi kartaa, amase qofkaasi wax uu kuu galay oo duca uu kuu duceeyo oo kale ayaad dhihi kartaa ilaahu ducadiisa ii aqbal. laakiin qof halka iska jooga inaad tiraha ilaahu qofkaas dartiis wax igu sii, arrintaasi arrin sabab noqon karta ma ahan uu ku yidhi. sabab ma noqon karto sharciyan iyo caqliyan intaba. intaasu marka mawduucaani ka hadlaya, asalkaani intaas ayuu ka hadlaya. sheekhu wuxuu yihi altawasulu ila allah, ilaahay in lagu dhowaado caza wajal bidaati shaksin axad daatadiis yuxibuhu llahu ilaahay uu jecel yahay, kala ambiyaai sida nebiyada aw gayrihim, amase ambiyada keyrkoodba ummado kale, min gayri an yakuuna hunaaka iyadoo halkaas ayna ahayn maa yuxibuhu llahu wax uu jecel yahay min altawasuli ilayhi oo ah in ilaahay loogu dhowaado biliimaani bihi inaad isaga rumaysan tahay, walcamali saalixi iyo camal saalixa. intaas wixii aan ahayn inaad ilaahay ugu dhowaataa baatilun caqlan wa sharcan, wuxuu baatil ku yahay caqli ahaan iyo sharci ahaan labadaba baatil u yahay. aad tiraahda axadaan ilaahay ugu dhowaanaya shuqul aanna ku lahayn anigu ayaan ilaahu malaaigta fadligooda wax igu sii. malaaigta iimaanka aan rumaysanahay haddaadan oranayn ee aada leedahay malaaigta darteed ilaahu wax iisii, waa qaldan tahay, waad qaldan tahay. marka wuxuu yihi sheikhu amaa caqlan, waxaan idha caqli ahaan iyo sharci ahaan labadaba baatilay u tahay arrintaasi. caqliga haddii aan ka bilowno, wuxuu yidhi amaa caqlan, caqli ahaan haddii aan u fiirino, faliannahu laysa fii kowni shaksi, ma ahaanin shaksiga ahaanshihiisa almucayani shaksi cayiman oo qof hebel ah, maxbuuban lilaahi ilaahay inuu loo jecel yahay, ma ahaanin maa yuujibu wax waajibiya qadaaa xaajati saa'ili in loo gudo qofka su-aasha la yimid xaajadiisa, bitawasuli isagoo kusoo dhowaaday bidaatihi qofkaas. macnaha malag malaaigta ka mid ahad waxaa tiri ilaahu malagaas wax igu sii, marka malagaas ilaahay jacaylka uu jecel yahay keensan maydo in adiga ducadaada lagaa ajiibo, keensan maydo. sababtoo maxaa ka dhexeeya? calaaqada ka dhaxayda inuu ilaahay jibriil jecel yahay iyo adiga in ducadaada lagu ajiibo waa maxay? xiriirka udhexeeya xiriir jira ma ahan. idaa lam yakun haddaynan ka ahaanin min almutawasili bihi midka lagu tawasulaayo, walaa min asaa'ili ama midka wax weydiisanaya haddaynan ka ahaanin sababun sabab oo tuqdaa lagu gudo bihi isaga alxaajatu danta, haddaynan sabab jirin. sabab maxay ku ahaan kartaa? tusaale ahaan haddii midka aada ku tawasulayda ilaahay kuu baryey, waxaad dhihi kartaa ilaahu ducadaas uu ii baryey ilaahu ii aqbal. tusaale ahaan nabi ambiyada ka mid ahaa tiri ilaahay ii bari, markaasuu ilaahay kuu baryey, markaas waxaa oran kartaa ilaahu ducadiisa ii aqbal.
taasi waa sabab ka ahaatay almutawassali bihi midka lagu tawasulay ama se sabab adiga ka ahaatay inaad tiraahdid ilaahu jeclaanta aan ambiyada ilaahi jeclahay darteed ducadeyda u ajiib ama se jeclaanta malaa'igta aan jeclahay darteed ilaahu ducadeyda u ajiib haddii aad tirahdid markaas waa sababaad la timid weeyaan laakiin inaad tirahdid ilaahu qof hebel dartiis wax igu sii arrintaas meesha kuma jirto yidhi sabab keensan kartaana ma jirto fa in kaana min almutawassali bihi ahadka lagu tawasulaya hadday ka ahaatay ducaaun hadday ka ahaatay lisaa'ili uu u duceeyey midka ku tawasulayo aw kaana min asaa'ili ama midka wax weydiisanaya uu ka ahaatay iimaanun iimaan wa taacatun lahu ama ataacid uu ilaahay adeecay hadday ka ahaatay fa hadihi wasiilatun saxiixa tani waa dhowaansho saxiixa oo ilaahay lagu dhawaado bilaa raybin shaki la-aan haddaad tiraahid ilaahay waxaan ku baryayaa inaan camal saalixa la imid oo ah inaan ambiyada jeclahay iyo wax la midka ah iyo inaan adeecay iyo inaan raacay saas oo kale waa war macquul ah sidoo kale waxaa macquul ah midkaad ku tawasulayda hadduu ilaahay kuu baryey markaas haddaad leedahay ilaahu ducada uu iga kaa baryay ilaahu iga aqbal taasna waa macquul wa amaa nafsu daatihi laakiin isaga daatadiisa almaxbuubati la jecel yahay fa ayu wasiilatin fiiha wasiilada ku sugani waa maxay wasiilada ku sugan daatadiisa ilaahu hebel dartiis wax ugu sii waa maxay naga dhaadhacsii ma jirto weeyaan idaa lam yaxsul haddayna kasoo xasilin lisaa'ili qofka wax weydiisanaya asababu aladii sababtii umira bihi asaga la faray fiiha dhexdeeda oo min aliimaani iimaan ah in la rumeeyo ah bihi ahadkaa lagu tawasulayo iyo wa taacatihi iyo in la adeeco sida rasuulka oo kale rasuulka waxaa la isfaray in la rumeeyo iyo in la adeeco taas haddaad la timidood ilaahay ku baryeydid nin saxanaata haddaad leedahay ilaahow waxaad ifartay inaan nebi maxamed raaco oo rumeeyo waana yeelaye iga aqbal ducadayda taas waa war saxa laakiin ilaahu nebi maxamed dartiis wax igu sii oo kaliya iska soo taagan waayo arrinta lagu diiday marka wuxuu yidhi idaa lam yaxsul lisaa'ili midka wax weydiisanaya haddayna usoo xasilin asababu aladii sababtii umira bihi la faray isagaba fiiha axadkaas lagu tawasulaya dhexdiisa laga faray oo ah min aliimaani bihi inuu rumeeyo axadkaas ah hadduu rasuul yahay wa taacatihi iyo inuu adeeco walihaada sidaa darteed falow tawasala bidaati nabiy sal allahu aleyh wasalam hadduu ku tawasulo daatada nebi maxamed shaqsi ahaantiisa haddii uu ku tawasulo man huwa kaafirun bihi axad ku gaaloobay hadduu ku tawasulo maca maxabatihi lahu iyadoo haddana ilaahay uu jecel yahay nebi maxamed lam tanfachu ma anfacayda shafaacadaasi ilaahu nebi maxamed aad jeceshahay nebi maxamed ilaahu jeceshahay dartiis igu sii saas igu gud aniguna ma rumaynayo nebi maxamed ma laga yeeli ma haddaba meeshaas maxaa yaala jeclaanta ilaahay nebi maxamed jecel yahay sabab adiga wax lagugu siiyo ma ahan ee adigu la imo sabab wax lagugu siiyo waalmu'minu bihi qofkii rumeeyana yanfacuhu liimaanu waxaa anfacaya inuu rumeeyo bihi nebi maxamed sal alla alay wsalam liannahu acdamu alwasaa'il sababtoo a wasiilo lagu dhowaado ilaahay midda ugu wanaagsan weeyaan oo macnaha hadda meeshan maxay kula bedelan yihiin gaalka iyo mu'minku labaduba ilaahay ay baryeen laakiin gaalku wuxuu yidhi ilaahu nebi maxamed jeclaanta aada jeceshay wax igu sii muminkuna wuxuu yidhi ilaahu nebi maxamed iimaanka aan rumeeyey iyo raacista aan raacay wax igu sii muminka ducadiisi waa laga aqbala sababtoo ah camal uu la yimid uu ilaahay ku baryay oo ah iimaan laakiin gaalku wuxuu yidhi ilaahu nebi maxamed jeclaanta aada jeceshahay adigu wax igu sii jeclaantana ilaahay jeclaya nebi maxamed maxaa kaa galay weya marka maxaa kaa galay adiga camal la imow kamaa fii qowlihi tacaala sida ilaahay ba yidhi rabbanaa ilaahow inanaa inaku samicnaa waan maqalnay munaadiyan mid dhawaaqaya yunaadii wuxuu la dhawaaqayaa liliimaani in la rumeeyo an aaminuu waray rumeeya birabbikum rabbigiin ayuu la dhawaaqaya fa aamanaa markaasaan rumaynay rabbanaa ilaahow rabbigeenow fakfir lanaa noo dhaaf dunuubanaa dunuubteenna wakafir cannaa nagana tirtir naga dhaaf sayi-aatinaa gafafkeenna watawafanaa na oofso maca al abraari annagoo dadka baariyaasha la jirna kuwaas annagoo ka mid ah na oofso haddaba sheikhu wuxuu yihi fatawasaluu dadkan mu'miniinta waxay ku tawasuleen biiimaanihim iimaankooday ku tawasuleen aamanna ay yidhaahdeen wa taacatihim iyo inay adeeceen lirusulillaahi rusushii ilaahay usoo diray ayay ku tawasuleen laa bidawaatihim daatada ambiyada kumayna tawasulin min gayri camalin minhum iyadoon camal ka ahaanin daatada kaliya isagama tawasuleen maxay ku tawasuleen ilaahay inay ka yeeleen warkiisii oo rusushii uu soo diray ilaahay ay dhageysteen kadibna rumeeyeen oo adeeceen
ayay ilaahay ku baryeen. marka adig sidaasoo kale lagaga baahan yahay. sheekhu wuxuu yidhi warku haddii uu batay khulaasatu lkalaam, warka aan soo khulaasaynin. khulaasadu waa maxay? ana atawasula ila allah, ilaahay in lagu dhowaado bidaatin daato shaksi oo yuxibuha allahu ilaahay uu jecel yahay, laa yanfacu wax kuu tari maydo ilaa biaxadi amrayni, laba arin mid kamida mooyaane. laba arin mid kamida ayay wax kugu tari kartaa. labada arin waa maxay? alawalu midda koobaad, an yakuuna min almutawasali bihi, axadka aad ku tawasulayda inuu ka ahaado camalun shaqo uu u qabtay lisaa'ili midka su-aasha weydiisanaya. hadduu camal iyo shaqo u qabtay oo tusaale ahaan inuu u duceeyo ah iyo wax lamida, markaasi waa suuragal. wahuwa ducaau lahu, camalkaasi waa inuu kuu duceeyo kale, taas waa laga aqbalaya. wahada arintaas inamaa yakuunu waxay ahaan kartaa fii xayaati lmutawasali bihi, markii uu nool yahay midka lagu tawasulaya. oo ambiyadu goormay kuu ducay karaan? markii noolaayo inay kuu ducay karaan. marka haddii uu kuu duceeyey tusaale ahaan nabi maxamed sal allahu aleyh wasalam, intaad u tagtay aad tiri ii ducee, uu kuu duceeyey, ilaahay ducadaas wuu kuu aqbalaya. fayaati saa'ilu, markaa saa'ilkiyaa imaanaya ila almutawasali bihi, midkii lagu tawasulaya ayuu u imaanayaa. fayadlubu minhu ducaa, duca ayuu ka dalbayaa. uma yatawasalu saa'ilu, saa'ilkii ducada dalbayay ayaa wuxuu ku tawasulaya biducaai almutawasali bihi, ducada midkii lagu tawasulayay oo lagu dhowaanaya ilallaahi ilaahay, fii qabuulihi inuu ilaahay ducadaas u aqbalo, waqadaai xaajatihi iyo xaajadaas inuu ilaahay u gudo. oo fayaquulu wuxuu leeyahay allaahumma shafic, ilaahow iga erga aqbal fulaanan hebel fiya, aniga ergada uu iga kaa ergeynayo. ay biducaaihi, ducada uu adiga ilaahu iga kaa baryay ilaahu ii aqbal uu leeyahay. wahada aladii midkan kaana, wahada kan aladii waa midka kaana yafcaluhu saxaabatu, saxaabada ay samay jireen radia allahu canhum, allaha ka raali noqday fii xayaati nabi sal l sl noloshiisa. oo nabiga waxaa u yimid saxaabada qeyb ka mid ah nin indhahal ah u yimid suu yiri ilaahay ii bari. nabig wuxuu yihi halkaas inta tegtid sal alla alay wasalam, halkaa inta tegtid ilaahay waxaad tidhaahdid ilaahu ducada uu nabigu ii ducaynaya ii aqbal, sidaas dheh. marka sidaasuu ilahay ugu dhowaaday. haddaad marka ducada axadkaas aad ilaahay ugu dhowaanayso oo uu ilaahay kuu baryey, taasi waa tawasul sax ah. qodobka labaad waxa weeyaan an yakuuna min asaa'ili, qofka saa'ilka ah oo ilaahay wax weydiisanaya waa inuu ka ahaado camalun camal tujaaha almutawasali bihi, ku aadan midka lagu tawasulayo. midka lagu tawasulayo camal ku aadan, camalkaasaad ilaahay ku baryeeda. oo tusaale maxaa u noqon karaa camalkaasoo yuxibuhu allahu minhu, ilaahay uu ka jecel yahay adoonka. camal ilaahay uu jecel yahay inuu adoonku la yimaado ayaad samaynayda. wahuwa camalkaasi daacatuhu, waa inaad adeecdo nabi muxamed tusaale ahaan fiima amara wixii uu faray, waliimaanu bihi iyo inaad rumaydo nabi maxamed, wadabi canhu inaad ka difaacdo wixii xumaanaho soo waajaha, wanusrati diinihi diintiisa inaad u gargaarto iyo waxa lamidka ah. fayatawasalu alcabdu, adoonku wuxuu hadaba ku tawasulaya ilallaahi ilaahay wuxuu ugu tawasulaya bimaxabati rasuulihi, inuu nebi maxamed jecel yahay, waliimaani bihi inuu rumeeyey. oo fayaquulu wuxuu leeyahay allaahuma allow inii atawasalu ilayka, adiga waxaan kuugu soo dhowaanayaa biiimaani birasuulika, inaan rumaysanahay rasuulkaaga, waitibaacii lahu inaan raacay, wastijaabatii inaan ajiibay liamrihi amarkiisa, wanaxwi dalika iyo sidaas oo kale wax lamid a, kamaa fi laayati asaabiqa, si aayadii kusoo hormartay. labadaasaa kuu banaan. marka wax kaloo kuu banaan ma ay jiraan. labadaas maxay kala yihiin? axadkaad ku tawasulaydahi in maaragtay isagu uu kuu duceeyey oo ducadiisii ilaahay aad ka baryeedo inuu kuu aqbalo, taasi waa camal mutawasalku uu sameeyey midka lagu tawasulay. iyo camal adigu ah sameyday inaad ilaahay u dhowaanaysid oo ah inaad tiraahid axadkaas hadduu nabiyahoo kale ilaahu waa rumeeyey, rumaynta nabi maxamed aan rumeeyey oo aan raacay oo aan jeclahay, ilaahu wax igu sii, taasna waa camal adigu aad sameyday weeyaan. fain qaala qaa'il, shubha soo aroortay. shubhadu waxay leedahay fain qaala qaa'ilun mid yiraahdaa hadduu yiraahdo ana idaa tawasaltu bidaati nabiy, nabi maxamed sal allahu aleyh wasalam haddaan ku tawasulo, aw gayrihi ama axad kale oo min asaalixiina dadkii wanaagsan ka mid ah, fainamaa atawasalu anugu waxaan ula jeedaa tawasulkaas bicamalii almutacalaqi bihi, camalkayga la xiriira, wahuwa xubii lahu waa inaan jeclahay, wa tacdiimii iyo inaan weyneynayo iyaaho isaga, wahada arintaasna mima yuxibuhu allahu minii, waa miduu ilaahay iga jecel yahay, inaan sameeyo. marka wuxuu leeyahy anugu shaksiga nabi maxamed aan ku tawasulaya ama saalixiinta kale aan ku tawasulayaa, waxaana ula jeedaa arintaas inuu ilaahay iga ajiibo maadaama aan jeclahay oo dadkaas weyneynayo.
aljawaab jawaabta waxa weeyaan ana xubaka jeclaantaada iyo wa tacdiimaka lahu iyo inaad weyneynayso yadcuuka wuxuu kugu yeerayaa ilaa ziyaadati aliimaani bihi inaad rumaydo wa taacatihi iyo inaad adeecdo. wahuwa aladii waa midka yuxibuhu llahu minka, waana midaas mid ilaahay kaa jecelyahay, inaad adeecdo iyo inaad rumayso ilaahay kaa jecelyahay. wa amaa xubun wa tacdiimun jeclaansho iyo weyneyn laa yastalzimu aan keensanayn daacatan inaad adeecdo iyo wanqiyaadan inaad u hogaansanto falaa faaidata minhu, wax faa-idaa maleh. nebi maxamed waa jeclahay mana u hogaansamayo, taasi faa-iida malehu ku yidhi. wainamaa huwa waxaa faa-iida arintaasi waxa weeyaan xubun jeclaansho wa tacdiimun iyo weyneyn liqadaai xaajatin dan sa ugu gudato dunyawiyatin adduunyo oo faqad kaliya. haddii ujeedkaagu yahay inaad ducooyinka kaliya ku dhex darto ilaahu nebi maxamed waa jeclahay ee aadan raacaynin amase aadan jidkiisii qaadaynin oo ku daysanaynin, taasi waa jeclaansho adduunyo kaliya ah, wax macnaana male. wahaada arintaasna laa yuxibuhu llahu minka, ilaahay kaama jecla. kamaa ana xuba abi aalib nabiy sal lla alay wasalam, abi aalib inuu jeclaa nabiga sidii ay aheyd oo kale. inamaa kaana maqsaduhu ujeedkiisu wuxuu ahaa tacdiimu nasabihi, inuu nasabkiisa la wen yahay oo nebi maxamed wiilkii uu adeerka u ahaa uu yahay, intaas u difaacayay oo u jecla. wa iqaamati xurmatihi iyo xurmadiisa inuu ilaaliyo, intaas u yeelaya maahane muunan aqbalin oo muunan ajiibin oo muunan raacin. falam yaqbalhu llahu minhu, ilaahay kama aqbalin jeclaantaas. abu aalib jeclaanta uu jeclaa nebi maxamed sal alla alay slam ilaahay kama aqbalin, walam yanfachu mana anficin oo waxba uma tarin. fasalkan markastana hor u sheegna wuxuu ku saabsan yahay tawasulka axad lagu tawasulaahi waxba kuu tari maydo, sababna uma noqon karto in ducadaada la ajiibo. laakiin laba qaabay suuragal ku tahay in ducadaada laga ajiibo axad haddaad ilaahay ku bariso. labadaas qaab waxa weeyaan camalkaaga axadkaas ku aadan inaad ilaahay ku barido oo aad tiraahdi ilaahow nebi maxamed waa rumeeyey ama ambiyada waa rumeeyey oo waa aan raacay ducadeyda iga ajiib, taas waa camal aad samaysatay. amase axadkaas inuu kuu duceeyey oo aad ducadiisa ilaahay ku barido oo aad tira ilaahu qofkaas wanaagsana ii kaa bariyey oo camal wanaagsan iga bariyay ood jeceshahaye ilaahu qofkaas ducadiisa ii aqbal. labadaas ayay kugu suurageli kartaa. amaa inaad tirahdo qof hebel daatadiisu meeshaas iska jooga ayaan ilaahay ku baryayaa, dee maxaa kaa galay daatadiisa, maxaa axadkaas daatadiisa adiga kaa galay oo camalood ku leedahay weeyaan. casharku intaas ayuu ahaa. wuxuu ka hadlayaa tawasulka lagu tawasulayo ummadaha ama makhluuqaadka lagu tawasulayo ayuu ka hadlayaa. wuxuuna shiiku sheegay labadaas qodob oo kaliya inay ku suurageli karto. tawasulka wanaagsan oo qof muminka laga aqbalaa marka wuxuu yahay inuu camalkiisa saalixa ilaahay ku baryo oo yidhaha ilaahu camalkiiga saalixa oon sameeyey awgiis igu dembi dhaaf ama wax igu sii, iyo inaad duco axad tiraahda ii duceeyo axad wanaagsan kuu duceeyo ducadiisaas maaragtay aad ilaahay ugu dhawaato, iyo inaad magacyada ilaahay ugu dhawaato tiraahda ilaahu magacyadaada wanaagsan aan kugu baryey oo ilaahay wuxuu yidhi walilaahi alasmaau alxusnaa fadcuuhu biha, ilaahay magacyo wanaagsan uu leeyahay ku barya. marka ilaahay magaciisa wanaagsan ayaad ku baryaydaa iyo tilmaamihiisa wanaagsan. midkaas ayaa wuxuu yahay tawasulka saxiixa. allahna waafajiyo xaqa. ilaahuna wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.